sida liin dhanaanta oo kale inta qiimaheedu waa jilicsan yahay oo hadda waa hooseeya faqiir iyo taajir suuqa ma sha Allah isku siya wax loo gataa fasaadii bihi badan fasaadahaas ay u yaraadeen hadda raqiis weeyaan maanta waa raqiis marka laga reebo mooska asugu waa qaali moosku 3 sanadood wax isbedel ma laha asugu waa qaali mooska waa qiimaha ugu badan ayuu joogaa maanta magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan waa magaalo ku yaala suuqa ugu weyn ee qudaarta ama ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsan gobolada dhexe ee dalka ee isku xira gobolada waqooyi iyo koonfur ee dalkeena qudaarta la keena suuqan iyo mid loo qaadaba gobolada kala duwan ee dalkeena waa halka mideeya suuqani qudaarta ee ku yaala Beledweyne isla markaana loo yaqaan suuqa dabageed hoos u dhac ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo qudaarta la keena suuqani halka qudaarta qaarna qiimihiidu uu yahay mid aad qaali u ah sida mooska oo kale qof kasta waa mashquul ku sugan suuqani markaad eegto qaabka ganacsigu u socdo oo waxa ku badan gaadiidka qaadaya ee kan keenaya noocyada kala duwan ee qudaarta suuqani mideeyay faqiir iyo taajir ee ku yaala Beledweyne qaar ka mid ah ganacsatada suuqa qudaarta Beledweyne ayaa warbaahinta qaranka ugu warramay qiimaha qudaarta la keeno suuqan halka ay uga timaad iyo gobolada loo iibgeeyo noocyada kala duwan ee qudaarta la keena suuqan ayaguna u sababeeyay hoos u dhaca qudaarta qaar yaraashaha fatahaada webiga Shabeelle oo sanadkani imaan taas oo saameyn jirtay wax soo saarka qudaarta qaar ee ka soo goda beeraha gobolka Hiiraan waa kuwan ayagoo arrimahaasi ka hadlay waxna hadaladooda ka mid ahaa qudaartana hadda qiimaheedu waa ma sha Allah sida liin dhanaanta oo kale inta qiimaheedu waa jilicsan yahay oo hadda waa hooseeya laakiin dalabkeeda hadda uu soo dhacay oo sida jigjigo kale sida Hargeysa oo kale inta hadda macnaha inoo timi dalabkeeda hadda waa socdaa oo fiican yahay hadda ma sha Allah meeshii laga rabay waa sida cambo oo kale inta cambahana ma sha Allah waa sagan hadda ayaan dhawaad raqiis u ahay 25 senti sagadin jin hadda 30 senti 32 senti la gaday maanta kor u socdaa waxa loo rarayaa in gobolada dhexe sida maxay tahay galmudug sida Puntland in Hargeysa ee jigjiga intaas oo gobol wax ka qaadanaysa meeshan oo maanta loo adeegaya meel suuqan qudaarta waxay uga imaadaa agaarka inaan soo hiiraan hadda waxa noo yaal soo hiiraan leewa buulo burte ugu dheer inta ka soo sokaysta leewa haraaraha magaalada u badan tahay qudaarta hadda taalo fatahaadada hadda labadan maal sanadkan hadda xoogaa bilowgiisa gugi iyo dayrtii hadda waa noomi imaan waa roona suuquna waa barwaaqo iyo bashbash aad u wacan yahay hadda suuqu qaalina maahan raqiisna maahan annaga waxaan iibinaa liinta qaraha bocorka yaanyada iyo qudaaraha kale yararka magaalada laga isticmaalo hadda normal waa qaali raqiisna maahan qaalina maahan wax sar oo kacay hoos u dhac intaba male faqiir iyo taajir suuqa ma sha Allah isku siya wax loo gataa fasaadii bihi badan fasaadahaas ay u yaraadeen suuqu waa caadi waa normal cambaha qaraha bocorka batiiqa yaanyada wax kasta hadda normal waa ma sha Allah waa qudaarta inteeda badan marka waxay ka soo gadaa gobolka sida yaanyada iyo maxaan ku raadaa bocorka iyo qudaarta cagaarka ah iyo kulli qajaarkii wixii oo dhan waxay ka soo go'aan gobolka ay ka yimaadaan marka hadda raqiis weeyaan maanta waa raqiis marka laga reebo mooska asugu waa qaali moosku 3 sanadood wax isbedel ma laha asugu waa qaali mooska waa qiimaha ugu badan ayuu joogaa maanta ayuu ka joogaa waa $40 ilaa 35 ayuu ka marayaa qudaarta isbedelka horta gobolkan waa gobolka ugu badan ee qudaarta laga qaato gobolada ay ka qaataan waa gobolada bari oo dhan marka waxa weeye galgaduud iyo mudug iyo togdheer iyo maxaan ku raadaa sool iyo sanaag meesha ay ka qaataan qudaarta intay uga tagtaa marka waxa weeye qudaarta cagaaran marka gobolka soo gada yaanyada oo kale maanta yaanyadu waa $5 baa ugu badan $4 iyo $4 baa saaka lagu bixinay gaduudka cagaarkana waa $5 weeyaan raqiis waxay ka timid qiimo aad u tiro badan bay ka timid waa raqiis way jaban tahay qudaartii kale oo sida maxaan qajaarka iyo asagoo lindhanaanka ayagana waa tubeytaano aad bay u yaalaan way soo go'aan sanadkan waa badan tahay insha Allah aad ugu badan tahay sudhaca waxa keenay waxa weeye biyo baxmal ah fasahaadii sanadkan way istaagtay waa fatahaad ah malahan amba biyo baxo aad bisay Soomaalidu u taqaan malaha marka sanadkan biyo baxadii way baaqsatay iyo fatahaadii aad bay raqiis u tahay laakiin xababkan jirin xababku ma yaalo magaala gobolka waa ka go'aya xababka amba qaraha hadda saa u taqaan qudaarta ugu tirada badan oo la raro waxay ka timaadaa buulo burto iyo jalaq oo waxa weeye cambo yaanyadii iyo cagaarkiina halkaan ka baxaan oo ayagu waa tanansado waa taa la rarayo oo halkaa dhooban
وعلى رجل عال إلا قدوس مريب إلا قروي إلا ماشي بوساسو والقبل هذا دن ويتقى خالد محمد مالك عسى بربها أنت قرنكا بلد وين